waxaan rabaa inaan u sheego axmedoobe horta madaxweynaha jubbaland waa haddii axmedoobe uu argagixisay yahay dowladdana waa argagixiso jubbaland waxaa lagula dirirsan yahay oo madaxweyne xasan sheekh uu kula dirirsan yahay oo xukuumaddiisa kula dirirsan tahay horta dan guud oo Soomaaliyeed ma ahane waa dan shakhsi dan qaran ma aha waa dan shakhsi oo xasan sheekh uu leeyahay axmedoobe dowladda maanta dhisan asaga wax ka dhisan mudan xildhibaan Soomaaliya maanta marxalad adag bay ku jirtaa marka la fiiriyo hoggaanka hadda jooga arrinta Jubbaland oo adiga laftaadu aad xildhibaanada halka ka soo jeeda aad tahay waan ogeyn raas Kamboni wixii ka dhacay toddobaadkan horaantiisii haddana gobolka Gedo ayay hawlo kale ka jiraan baa la leeyahay guud ahaan maxaad ka oran lahayd arrinta ka dhaxaysa Jubbaland iyo dawladda dhexe waa mahadsan tahay aniga waxaan ahay xildhibaan laga soo doorto deegaanada Jubbaland guud ahaan Soomaaliya oo dhan waxaan u rabaa nabad iyo baraare ummadda Soomaaliyeed waxa meeshaan dhigay waa qabiil iyo cadaalad darro waxaan u rajaynayaa insha Allah taala inay cadaalad sax ah ummadda Soomaaliyeed ay ku wada noolaato haddii aan u soo laabto Jubbaland waa meel xasilan maamul uu ka jiro isteedada Soomaaliya ay ka mid tahay Jubbaland wax gooni ku ah ma jiraan waxa hadda socda ma garanaysaa dawladda federaalka hoggaankeeda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha Jubbaland u dhaxeeya oo aan isleeyahay in lagu soo gardarooday institutionkii Jubbaland u deganaa iyo dastuurkii federaalka ahaa wuxuu xaq u siinayaa loo diidan yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa diidan dan guud oo Soomaaliyeed uma diidana dantiisa gaarka u diidan horta dadka Soomaaliyeed waa inay fahmaan taas Jubbaland waxa lagu dirirsan yahay oo madaxweyne xasan sheekh uu kula dirirsan yahay oo xukuumaddiisa kula dirirsan tahay horta dan guud oo Soomaaliyeed ma ahane waa dan shakhsi dan qaran ma aha waa dan shakhsi oo xasan sheekh uu leeyahay kuwa hadda la jooga oo Southwest iyo Galmudug iyo Hirshabeelle haddii uu danahaas uu ka waayo Jubbaland ay iska diido tiri annagu ma sii joogi karno mandate la'aan ayagana sidaa un baa loo weerari doonaa horta waa inay ogaadaan wuxuu hadday dan guud yihiin loskuma eedeeyo marka waxaan waa dan yar oo gaara oo duqaan asaga uu rabay ahayd dan gaaran hadda dalkan ma anfacayso taas horta waa inay ogaadaan waxaan rabaa marka inaan warkayga ku daro nuurow Soomaaliya 30 sano diriraysa waa la kala adkaan waay waa la soo qaxiyay kuwa wax soo qaxiyay kuwa bay ka soo daba qaxeen waa la iska soo daba qaxay halka Afrika baa la isku wareystay cid horta faa'iido gaartay ma jirto marka horta waxa soo dhan inaan wax ka baran weyno 10 aan ka baran weyno horta waa nasiib darro wayaan waxa arkay kuwa rag dhalinyaro ah mas'uuliyiina aniga ma raba inaan u gafo wasiirra xildhibaan ah dhahay Axmed Madoobe argagixisa waxaan rabaa inaan u sheego Axmedoobe horta madaxweynaha Jubbaland waa haddii Axmedoobe uu argagixisay yahay dowladdana waa argagixiso sababtoo shalay wax la wada shaqeynaa caanay malaba la aha Axmedoobe dowladda maanta dhisan asaga wax ka dhisan systemkiisa xildhibaan ku soo noqday madaxweyne xasan sheekh garab istaagii iyo kaalmadii uu kaalmeeyo madaxweyne ku noqday marka duu asaga argagixisay annagoo dhan argagixisana horta taas waa inay dadku ogaadaan waxaanu aan lagu degdegin waxaan kale rabaa inaan u sheego dhalinyaradaas wasiirrada ah ama xildhibaanada ah ee ku hadaaqaya Axmed argagixisa xagga ka baxaya Axmed iyo Xasan way heshiinayaan anaa hubin heshiinayaan waxaanu ma sii socon doonaan war recording ah oo qadaf ah oo aad ka qoomamayn doonto maanta yaan laga duubin Axmed argagixisa ma madaxweynaha Jubbaland waaye احترام iyo sharaf iyo karaaman u hayna shaqada Jubbaland u soo qabtay qaranka u soo qabtayna waa bogaadinayna madaxweyne xasan sheekhna lamidu nooya wixii wanaagsanaa uu soo qabtay waa bogaadinayna waxa qaldanna waxaan leenahay ruuxaan qalad ay ku socdaan hal joojiyo yaan lagu sii talaxtagin sheeka biri dhamaan doonta laba nin oo Axmed iyo Xasan waxaan huba biri ayagoo gacmaha isaysto oo walaala marka waxaad aaminsan tahay hawsha Xasan iyo Axmed maanta ka dhacaysa waa dhamaanaysa Xasan sheekh biri Ismaaciil joog iyo Axmed oo Muqdisho gacmaha isaysto oo wixii la isii xalay dhalay ka waa la arki doonaa marka kuwa yareerka oo ma taqaana ishag lagu qaldaaya aragtida qof uu leeyahay lagu qaldaaya la hebel waa shabaab hebel saan oo ah ka joogan leeyahay ka jooga meel aan waxba ka soo celin karin waxyaan la gaarsiin arrinta Gedo maxay kaga duwan tahay arrinta Kamboni horta Gedo Jubbaland ay ka mid tahay isteedada Jubbaland ay xukunta gobol ka mid ah waaye waa gobol nabdoon waxaan u maleynayaa 6 degmay leedahay Gedo meelo shaab jooga ma jirto intaba ma taqaana ishag maamulka Jubbaland iyo dawladda federaalka ciidamadooda jooga ciidan marka in la soo qaado oo la geeyo meesha la yiraahdo Garbaharey iyo Baar Dheere iyo Balad Xaawo in laga fikiro wax macno ay soo kordhinayso male wixii shalay farmaajo uu ka fikirayay madaxweyne xasan sheekhna uu ku dhaliilay oo lahaa meesha Jubbaland xukuntay ciidamada la qaadaha laga joojiyay tii umbu asagana tii umbu koobi soo yiray wax kale hadda xigmad uu keenay horta ma jirto
waxaan rabaa ninka la yiraahdo maxaa Cabdullaahi Farmaajo saagida ka soo jeeday oo madaxweyne ah oo shalay ciidamo ku daldalay waxba wana ku keeni waay markii dambana waxay danta biday inuu Axmed la heshiiyo sababtoo ah xaqiiqda in loo soo laabto waa laga maarmaan dawladda talmaanta Xasan Sheekh Maxamuud uu ka yahay madaxweynaha boqolkiiba 10 ma dhama taageerada ay ka haystaan gobolka Gedo marka wada lagu fashilmay iska soo dhamaanayso war ciidamadan yaan lagu lugoynin ciidan meel la geeyo iyo mataqaan cadow lala diro dalka waa buuxa Jubbaland cadow ma ahane yaanan la isan dirin shabaabka lala diro cadowgeena waa shabaab way mudane xildhibaan Xananuud Kamboni markaas Kamboni dagaalkii ka dhacay dib badan baad ciidanka qaranka ku soo gaaray yaa qaadaya mas'uuliyadda wixii ka dhacay Kamboni cidii ka qaadays Xasan Sheekh Maxamuud qaaday Xamse Cabdi Barra qaaday ayaga mas'uulka sababtoo ah Kamboni wax dhibaba kama jirin maamulka Jubbaland joogay amniyay ahayd shabaab ma joog way ciidanka loo keenay marka wixii meeshaas ka dhacay hadii ciidan Kenya isu dhiibay iyo hadii ciidan shabaab isu dhiibay iyo hadii ciidan ma garanaysa ay dhaawacmeen ama ay dhinteen mas'uuliyadaas ama Mallaahi Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barra la weydiinaya ayaga mas'uuliyadaas qaaday shacabka Soomaaliyeedna waxba kuma yeelanayso Jubbaland ayada joogtay amniga ayada ilaalinaysay maxay ku yeelanaysaa Jubbaland waa lagu soo duulay waa la soo weeraray oo waxa la madaxweynaheedii waxa la yiri waarna la jaraya xagee lagu arkay waxaas nin yaro burcad badeed oo magaalada Muqdisho jooga dawlad soo qaban la ayaa system dhan oo dhisanay madaxweyne Jubbaland oo la doortay sharci lagu doortay shacabka ay doorteen ay waxay ku leeyihiin waa soo qabanayna soo xirayna sida dadka loo qaldayo u jeedaa horta way dhawaan waxaad baas garayseen أنا وحن كهذا يا برلمان كصومالي هذا ونحن حبي كتير وحباس قرية جودي دور الشذا قرنك حاجة جودي جاسية مستقبل كسكود بين دونا واسلة أرتا سيد هذا بدور الشقرن يجودي دور الشقرن ذلك هو أباهي لكن واقور ما حيل قالوا أباهي ذلك بيصل السعودة جودي جياد بيصي مقفى سوقري مس صومالي أردن ستيك هالله هيشيس كوها أرتا وحن أجنه هاي بلدان إنهم مقنطة واحد أكتر جبلان إنهم مقنطة قاعتما إيه مقنطة سومال لأن هري مقنطة واحد ثلاثة kuma isalhayn ayada ma fahmaysa aniga gudigaas waxaan aaminsanahay qaabka loo soo dhisayna inay ahayd qaab waali ah oo aanan laga fiirsan meeshu ku dambeyn doonana horta Ilaahay baa yaqaan meeshu ku dambeyn doona laakiin anagu siyaasiyiin nahay waxaanu martaqaana ii sheegay dalkaana muddo soo joognay gudigaas wuxuu ku dambeynayaa parallel process gudi kala laga dhisi doona ما فهميس أنت إسقاله معارضك إستدياد معارضك أنت إسقال جودي السنة يعني لابد جودينا والله صوت توري دونا جودي هالشيء سلوي يعني ما دونا شاء كانوا إن البار وين للسماية تكد وين إلا السماية ذلك هو مركز أنا جو مركز وسود ويننا لكن هذا ريو وإسكريو أنا جو هذا ريو مقت أنا جو ددوا ويننا ريو كم هاللين هرت ما فهميس قف ريو هذا هو داعي هذا بين كسان ريونا مركز وحي عن ريونا كل ريونا هذا ضد كوشيجن هذا هو جامين ما قيالجا iyo ma garanaysa ii sheekriye maalmeedka iyo waxaas inta iska dayno xaqiiqada dhabta inaan u soo laabano waa laga maarmaan Soomaali kala ma maaranto qof kaligeed wax meel geen kartaana ma jirto dekadaasi airportkaas quruxda badan oo Soomaali loo dhisay hadana raali la iskaga ahayn lama dhisi karo midaan rabaa warkay inaan ku darsado waxa laga fikirayaa doorasho qof iyo cod ay xagan u guureyna magaalada Muqdisho kaamira lagu xiri lahayd horta gurigii wadada Makal Mukarrama horta waxa lagu xiri lahayd kaamiro oo ma garanaysa ii sheeg dawladina waa xiraysa habeenkii shaax baday ku dhufanayaan wadanka mashaakil ka jira wad ogtaa marka dal kaamira lagu xiri laayay ninka dadka u sheegaya ee dhahay qof iyo cod ayaan dalka gaarsiinaya horta inuu dadka been u sheegay dadka horta waa inay ogaadaan oo aqliga dadka uusan ku ciyaarin ma fahmaysa aqliga dadka waa inuu ku ciyaarin xaqiiqda waa in loo soo laabto dalkaas qof iyo cod qof diidaysa ma jirto laakiin marxaladda maanta jirta doorasho qof iyo cod kama dhacayso